maalmaha waxaan maqlayay madaxweynihii jamhuuriyadda waa la qabo ka baxdo waa dhintoo beydkiisii baa la soo sidaa facebookyada lagu qorayay xisbiyada ka hadlayo qaarkood aad iyo aad soo dhaweynaya abtiyadii baa xabad jeclada yaqaanee hadday daadaagaaga xabaduu maanishe xabaad kuma dilo saa ula socda xabad jeclada xabaad kuma dilan hadday daadaagaaga xabad maanisha taasna intaasaan ka odhanaya waxaan kala maqlay xisbiyadani baa odhan lahaa saaxiibkayga rawuu baxay beryaha kan qolada subeeqa warmaqay hadasho xabad jeclo keligay baa la hadisay aadna hadalka waan isugu xadhaarin jiray maanta hadalkii hadal ka duwan baan odhanaya hadalka ka duwan muxuu yahay waxa la yidhi hablo iyo dameeraba ducaa-aan bay tilmaamo dadku wiiladu bay ku dacaysaan wax laga yaabaa 9 gabdhood iyo 10 gabdhood oo duca lagu dacay bay yimaadaan maanta kulmiyeer iyo wadani waxa lahaa codka u qaybiyo weliba xagga wadani u badan ducaa-aan bay iska timiyo kulmiye waxaan maraya ducaa-aan inay isaga tegayso maxaa sababay waxa la sheegayaa masiibaadka lagama dhowreen qoladii wadani waxa la leeyahay calankii buluuga habay maanta sitaano safaaradii imaaraadka ee ingiriiska ayay leeyihiin farmaajo loo geeya baa la leeyahay taasina waxaa leeyahay waxa weeye waa arrin runtii eegistiisa somalilan markay wax qaybinayso aad iyo aad maanta u mudan ninka maanta calanka buluugaa sita ee maanta mowqifka laa koonfur taasina waxa weeyaan kelmadayda intayda la odhanaya ninkii ku farxaya iyo ninkii ka naxayaba aad iyo aad loo mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu